booliska Thailand waxa ay qabteen ganacsade Shiineys oo lagu tuhunsan yahay isku day dil uu ku doonayay inuu ku qaarijiyo xaaskiisa safar dalxiis dalkaas ay ku wada joogeen waadi dheer oo dhulka ka hooseeya 34 mitir sida ay qoreen warbaahinta Thailand. ninka Shiineyska ah waxa uu damcay inuu dilo xaaskiisa oo u lahayd 3 bilood ah si uu u dhaxlo oo ugu haro hantidan 3.2 milyan oo dollar oo ay lahayd. boolisku waxay cadeeyeen in Yu Xiao Dong oo 33 sano jir ah in la qabtay haddana uu wajahayo tuhun ah in xaaskiisa Wing Naj oo 32 sano jir ah uu doonayay inuu qaarijiyo. waadiga uu ka tuuray dhulka wuxuu ka hooseeyaa 34 mitir laakiin nasiib wanaag waxa ay ku dhacday caleero adag inta aysan dhulka gaarin. haddii dhulka ay si toos ah ugu dhici lahayd naf laguma gaareen. haweeneyda waxaa soo gaaray dhaawacyo iyo jab dhanka lafaha ah laakiin uurkeeda wuu u badbaaday xaaladiisana waa ay wanaagsan tahay sida ay sheegeen. mucjisada haweeneydan ay ku badbaaday kadib waxaa warqad lagu soo qabanayo loo jaray ninkeeda oo doonayay inuu damacdarri u dilo. haweeneyda dhacdadan ka badbaaday waxa ay sheegtay in ninkeeda si ula kaca uga tuuray waadiga waxa uuna u haystay in markii uu sidaan u dilo aan xaalkiisa laga shakin doonin. Dalmar Cabduqaadir,